أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxa ka hadlaya Caaqil Cabdirasaaq Maxamed Askar marka hore waxaan hadalkan kalifay maalin dhawito hadal xanaf loo Sultaan Xasan oo ka hadlay baan media ka dhageysanay annaga dadka halkan fadhiya dadna waxaan isla garanay Sultaan Xasan hadaladiisu xanafta leeyahay maanta oo qura maaha marka waxaan isla garanay inaan u jawaabin oo aan hadalka waxba sara loo qaadin hadalka xun qofka yiraahdo marmar bay u baahan saan loo qaadin kan horta markaan ka inaan dhaafin ayaan la noqotay waxa dabadeedna la soo leexiyay hadal haddana xalayto TV-ga ka dhageysanay oo anigu markii ay odayaashaas TV-ga soo galayeen waxa cindigayga ku jirtay hadalkii xasane xanafta lahaa ayay xaal ka bixinayaan marnaba tirada kuma darin mid kale oo xanaf leh oo kii kaba sii ayay odayaasha inta la isugu imanayaan waxa weeye dad wada dhashadeenay magaaladan Hargeysa ayaynu imanka ku wada nool waxay ka hadlayeen waxa ay magaalada Hargeysa biyaha magaalada Hargeysa hadaynu inagoo dawladda ku heshiin weyno oo dawladda looga dambeyn waayo oo qabiilku yiraahdo halkii biyaha laga soo saaray waa halkaygiyo meeshan doonaa la marinaya aniga waxa ila tii dawlad jiraysa ma jirto ummadana waxa wanaagsan inay waxa wanaagsan ku hadasho mid golayaasha waan ka codsanaya warbal horta imaka saxaafadu markii khaldanto waa la xidha warbal suldaanka wax qarribaya qodobkii qaban lahaa suldaanka wax qarribaya ee saxaafadaba ka xun saxaafadu hadal niidin baabay tacliiqisa war suldaanka hadalaan meesha la leegeen oranaya ee dadkii kala dilaya waxay la taydeen in golayaashu ay wax qabta ka soo saaraan annaguna haddaan hoggaan dhaqameedkana waxa qurux badan inaanu shirno inaynu dib u wada hadallo dadkani ku dhaqmi maayo qabyaalad iyo kala qoqob inagoo isku wadana oo isku dana biyaha lagu cabiyo waqooyiga Hargeysa hawdka lagu cabi maayo hadday noqoto waxaan wada yeelanaynaa ma jirto arrin biyaha in qabiil ka hadlo anigu waxaan ahaa guddigii hore ee arrinta ka shaqeynaysay waan shirad badan baan ka galay biyaha carqalada waxa ku ahaa qolada xaytaanaysa halka la yiraahdo la mariyo ee technicality la yiraahdo la mariyo iyo halka leeyahay la mariyana laba isu dhawaan xalayta waxay lahaayeen halkan leeyahay la mariyo ka dhow waa la baaray waxa loo diray injineerada loo diray suurtagalba ma aha meesha ay leeyahay la mariyo waxa kaliya ay ka hadlayaan waxa weeye waa dhul aan deegaankii annagu aan qabiilkaan maxay yara hoose jifada aan maxay ka baxsan iyo biyaas maraya ilaahay baa ku dhaariyo baromada wadanka ku noolay arrintaas meena dhaqaysa hadduu ilaa ninka walaalkay inagu dadka dhaqan waxaan u lahaan jirnay baadkii biyaha inaan la kala cashin waxa dhacda marka halka roob ka doo ee hawd ka doo kuwa qoygu soo guuraha u tagaa biyaha iyo baadka midna laga cashiro kuwa qoygu soo guurana qoygu yimaada biyaha iyo baadka meesha imaka ciladana ka soo baxday ayaan fahmaynay marka waxaan leeyahay arrintaasi waxay kharibaysaa wada dhalashada iyo dadnimadii midna qolada hadlaysay ama Sultaan Xasan ha noqdo amba ha noqdo qoladii ka dambeysay ninka madaxda waxa dhisa xigtadiisa ama iyaga dumiya madaxweynaha waxaan ku amaanaya hadal maalin dhexe uu yiri wuxuu sheegay madaxweynuhu laga bilaabo maanta inuu madaxweyne qaran yahay oo kii soo doortay iyo kii u hambaliyay u sameeyay cid sheegan kartaan aan jirin markuu madaxweyne halka yiraahdo ee suldaankiisii yiraahdo hadaynu jeegaantani anaga markii mushkiladeena kaga daranay waxa weeye war qoladii de ka soo horjeeda wadani misragayga la socday ee nafiya maalba ay kaga baxaan kii ka soo horjeeday dee inuu kaba xanaaqaba ma aha waxa ka dhib badan ba dadka yagii doortay madaxweyne Muuse Biixi labada beelood oo sheegay damay dooran Soomaaliland oo dhan baa meel walba loogu diray ragii anigu waxaan aaminsanay inaan isaga wala jeclay kala gacalbadna Muuse inuu meesha qabto inuu maanta arrintii ku koobo isaga oo shalayna wuxuu sameeyay Sultaan Xasan ka inaan aad u sii dhaxgal ma jeclay hadal shalayto wuxuu sameeyay waa looga markii Muuse uu gudoomiyaha u soo socday maanta hadalkaas uu leeyahay marka waxaan leeyahay waxaan haddaba naga hadliyay oo aan hadalada loo diinay ilmaada reer waxa qurux badan anigu
waxaan ahaa markii boqoraabi uu hadlay ee uu hadalka aan meesha qaban yiri raggii hadlay ee hadalkaas meesha ma qabto xaal baan ku bixinay ee uu Muuse duray ee uu wixii dadku ka tagay soo qaaday waxaan doonaynay mar haddii madaxweyne ay yihiin mar haddii ay suudaankii madaxweyne ay yihiin in xigtadiisu tiraahdo hadalkaas suudaanku meesha ka yiri ma qabto qoladii xalay taa hadashay hadday intaa raacin laayeen intay biyo iyo waxaan aan lahayn iyo dad walaalaa biyaha laga xidhay intay awoodda saarayeen ta qarankaba duminaysa inay saaraan bay inay xaal ka bixiyaan bay wallahi inaan kaba jawaabnin waxay doonaan kala hadday ka hadaan ilaa suudaan hadalkaas suudaanku meesha muu qabanay ونميو سكان قبل ما يسو قبيلات حنو خير نما أنا جوا حن كدورني قرن صدق هذا مشرح بانو كلا أيام أنا شخصيا كلا دورته وحنا نرسل موسى ودك ودك رأيه دي حتى إيه الشو إلا بدي يدفعين دورته بقى وإنكوا بنس وإنكوا بنوح الشيءته وأنكي كلا كتشوا المشكلة هذا الكيوان بدي وأنا هذا الكسر يقول بيني سودان والله ما ذاك على دورته مدحونه ما أنت واسودان والله توهم بدنا هرية وطن كريم كاليدين تومي إنا مدحونه بدي يسكسوا رجساني إنا ملقيه مدحونه راحة عمرتانو أنك مدحونه وحلوه بهاي ريركو ده إنه إلاليو إنه وحدتك كلك حينية إلاليو لبضع سون كلا دورت شلي تابرج على شوقي أنا أقول لك بور مدول إلى ما أقول حنا سوي بوالله عاي وحول بوالجود سودانك جودة هبرج أولي أرهن مدحونه اللي يا أرهن دولة الله يا أرهن تذكر كلك حين سكان عندي والله أنا أعرف إما هو وحوا بيل وحنا نقابل أرهن ثانا سيدا يسوق وانا يسوق أهم مدحونه على النقطة أهم مدحونه وحجيو هلا يذكره شال كنيك عايزتا أيها إنه توقعته تينا تعليدين حق الذين إلا إذا كقاضوا أو أمستان بحق الذين كلهم هذا الناس ذا كرينا تذكر كريه كسوري شيء أنا ثاني تاسن كربو حياة وحكلام لها ليا وحكلام كان ليا أرنتا بطلاني نجا أرنتا وحنا ليا دجال نجا واحد لا تلين أنا وحنفعين دولة السومالي الآن يمدحونه هي وحنقولات خلينا يا تذكر أنكو كسبنا وحقبط تذكر هل كايا اللي نجش حاحي عن وحقات بتكون كسبنا عن هرمر سمينه أنت إنه قدنا وحنا نصاص على قدنا يجع عن سين ودن كان ود اسمه لكن هذا الاسم لا ود أيضا كوفلية لب شيء ده إلا بتلانا وحنا لا ورد الصومالية ده عن كلفجاني بينهم حياة وحنا وينو كل حديثنا جناني عنصري مدحونها بتلانا ماشى ما يلاقين أنتوا إذا عاد صوت إنه الدجال إعلامية ولو مدحونا الصومالي أنت قال كمان مقال مركها وحنا لا يستجر نيكم مدحدي ماشي وتشوفوا قرن مدح معها تذكر هالكا كودنتا اسكود لا دمده waxay saaranta cidii wax mushkilada keenta kaamid xuyaan waxaan leeyahay hadalkaasi mar hore tirood khadotay mar dambe arrintaana waxaan leeyahay xagga wax qabadka ana wada saaran xagga ciidanka inaan wada saaran assalamu alaykum